bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa marka koowaad farxadii inaan ku suganahay maanta caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Aniga saaxiibkay Xariir Axmed annagoo muddadii u dambeysay aan joognay Hargeysa caasimadda Soomaaliland kuna lahayn barnaamijyo kala duwan. in badan baan ku rajaynay oo aan hamiga ayuu ku jiray inaan mar uun soo booqanno Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhan, laakiin maanta Ilaahay saamahayaga soo qaaday. waxaa farxaday inaan ku suganahay. marka koowaad waxaan salaan ballaaran u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, gaar ahaan shacabweynaha xamar. aad baan u salaamayaa. waxaan leeyahay Ilaahay baa mahadle maanta halkan nagu simay. farxad bayna aan ahaan ii tahay inaan maanta dhex taaganahay Muqdisho oo in badan ku taami jiran inaan imaado. insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaan qaban doonaa aniga walaalkay Xariir barnaamij insha Allah qurux badan oo show ah ciidaan isleenahay insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo inaan shacabka iyaga iyo dadka iyaga aan si wanaagsan aan isu dhexgalno oo aan barnaamij qurux badan oo qabanayaan doonaa insha Allah. waa salaamantiin idinkoo isku duuban dhammaantiin. aad baan ugu faraxsanahay inaan dhex joogno caasimadda Soomaaliya xamar. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Muqdisho. maanta dee bagaan nabad nimidnay magaalo madaxda Muqdisho waa hooyadii Soomaalida. marka waxaan leeyahay shacabweynaha meel kasta joogan waxaan u sheegaynaa annagoo qaban doona hadduu Ilaahay yidhaahdo aniga saaxiibkay Suldaan Seeraar show aad u qiimo badan meel kasta joogan aan ku raaligelin doono. annagoo hadda ku sugnayn Hargeysa haddana joogno magaalo madaxdii Soomaalida oon maanta leenahay bagaa Ilaahay baana nabad keenay. dhammaan shacabweynahan halkan ka salaamayaa iyo dhammaan dawladda ayaan halkan salaan sharafeed uga jeedinayaa. shacabweynahana waxaan leenahay showga ayaan la maqnaan hadduu Ilaahay yidhaahdo waa mid aan soo iman doonno hadduu Ilaahay yidhaahdo. waa markii koowaad xamar nimidnay. run ahaantii waanu jeclaan doonaa waanu ku soo noqnoqon doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. sidaanu shacabka u raaligelin lahayna falowgeeda ayaan gelaynaa oon mataqaanaa heeso kala duwan oon kuwii hore ahayn oo cusub ayaan u soo bandhigi doonaa aniga saaxiibkay Suldaan Seeraar ku hadba. marka waxaan leeyahay bagaan nabad ku nimidnay dhammaan aad ayaan salaamayaa. kal halkan aan ka salaamaynaa walaalka iyo saaxiibka iyo Cabdi Askari Tube oon leenahay saaxiib waxaan nabad ku imaanay. in badan baad nala soo shaqaysay, in badan baad isku xidhka aad ka qayb qaadatay. waxaan nabad ku imaanay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaan dhex taaganahay alxamdulilah. aad baan halkan kaaga salaamaynaa walaalo. halkan waxaan salaan diiran isagana ugu dirayaa saaxiibkay Cabdi Askari Tube oon leenahay maanta xamar ayaan ku sugannahay. halkan aad ayaan uga salaaminaa. waa ninka shaqooyinka inta badan nala qabta. bismillah. waxaan soo dhaweynayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo dhaweynayaa fanaaniinta Soomaaliyeed geyiga Soomaaliyeed aadka looga jecel yahay fanaaniinta waaweyn Xariir Axmed iyo Suldaan Seeraar. dadka aadka u daneeya fanka Soomaaliyeed ee aadka u jecel yihiin waxaan maanta ku soo dhaweynayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliyeed. ay mar dhow bandhig faneed weyn ay ku qaban doonaan maalinta ciidda. shacabka Soomaaliyeed aan ugu sii hordhacaya aan soo dhaweyntooda sharaf ay ii tahay inaan halkan ku soo dhaweeyo. iyagana waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaaladiina, ku soo dhawaada dalkiina hooyo magaalada Muqdisho. shacab idin jecel, dad idin jecel iyo dawlad idin jecel ayaa idin soo dhaweynayso. wax kaloo aan idin iraado ma lahan. dadkiinii oo idin heelan iyo shacab idin wada sugayo ayaan halkan idinkugu soo dhaweynayaa. waan idin marxabaynayaa. waana arki doontaan shacabka reer Muqdisho heelada iyo farxadda ay idin qabaan ayaan idinkaga sii hordhacaya insha Allah. soo dhawaada idinkana waana mahadsantihiin. aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka sida quruxda badan uu noo soo dhaweeyey. dad waxaan nahay ka yimid magaaladoodii u yimid dad waddanka ku cusubmanihin. anigu waa markii igu horreysay aan ahaan Suldaan ahaan iyo saaxiibka Xariir ba aan Muqdisho imaanay. inkastoo in badan aan ku fikiraynay Ilaahay maanta saamahayaga soo qaaday. dad waxaan nahay waddankoodii yimid, dad shisheeye u yimid manihin. aad baan ahaan ugu faraxsanahay aniga saaxiibka Xariir. dawladda iyo shacabka isku dubanay sida noo soo dhaweeyeen. aad baan idinka mahadcelinaynaa. maasha Allah. waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa wasiirka xigeenka warfaafinta sida quruxda badan uu noogu soo dhaweeyey magaaladanada. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waa magaaladanadii baan nimidnay. dad martiye ma nihin walow ay tahay markii ugu horreysay nimidnay. haddana waxaan nahay waddankoodii yimid. meel Soomaaliyeed baan nimidnay. waddanka annaga baan joognaa. aad ayaan u salaamayaa dhammaan intii ka qayb gashay soo dhaweyntanadana. runtii waxa weeyaan farxad bay noo tahay inay walaalahanay magaalada Muqdisho ay yimaadaan magaaladooda ay yimaadaan. Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa. qof kasta oo Soomaali ah iman karo
saaxiibaday dee sidii quruxda badneed ee wasiirka xigeenka warfaafinta iyo xildhibaanadii kale iyo dadkii kale oo saaxiibada ah soo dhaweeyay aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantood iyo bahda SNTV ayagana oo qayb muhiim ah ka qaatay ama kaalin lixaad ka qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa qof kasta oo nagala qayb qaatay waxaan leenahay waad mahadsantihiin insha Allah dee fanaaniinta waxa u yimaadeen inay qabtaan show inay qabtaan sida caadadaheedna waxa weeyaan shacabka magaalada Muqdisho ku nool waxay aad u jecel yihiin garanaysa dhalinyarada fankooda hadda aad ka loo xiseeyo Suldaan iyo Xariir oo saaxiibaday ah waxa u yimaadeen inay show ku qabtaan marka aad baan u soo dhaweynaa waxaan leenahay magaalada ku soo dhawaada shacabka reer Muqdishona waxaan leenahay fagaaraha dee yimaada hadda la yiraahdo yaa la kala maqnaan runaha qarday iyo bosaas rabtay